السلام عليكم ورحمة الله. muuqaalkani waa digniin ku socota bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga. Sida in badan oo idin ka midii aad ka dheehateen baraha bulshada iyo goobaha kale ee lagu wada xidhiidho, waxaa toddobaadka hor ka dhacay magaalada Istanbul fal aad u fool xumaa oo lagu bartilmaameedsaday muwaadin Soomaaliya oo magaalada Istanbul lagu dilay. falkaas waxashnimada ah waxa geystay niman Turki ah waxaana muwaadinka ay u dileen sidii ay u qaadan lahaayeen iPhone uu haystay iyo lacag yar oo uu jeebka ku sitay. sida aad la wada socotaan sicir barar baa dalka ka jira, maciishadiina way adkaatay. sanadkan bilowgiisii $100 600 liiro ilaa 700 liiro ah, iminkana 1400 liiro ayuu kor u dhaafay. macnaheedu waxa weeye qofka muwaadinka ee dakhligiisu yaraa baahidiisii ayaa waxay ka badatay wixii uu qaadanayay. taa macnaheedu waxa ay keeni kartaa in falal dambiyeedyadu ay sii kordhaan marka qofka nolosha iyo duruuftu ay ku adkaato. Soomaalida waa dad aad isu taageera, waa dadkooda qurbaha jooga ay ka warhayaan. waxaad arkaysaa hooyooyin xawaaladaha lacag ka qaadanaya, dabadeedna iyadoo dollar ku dhex tirsanaya taksiyada ama banaanka la istaagayo ku tirsanaya. marka lagu arko adoo lacag sita ama telefoon iPhone ku xaragoonayo gacanta ku sita, in tuugada iyo dadka waxaan u bareeray ama duruufuhuba u geeyeen ay ku bartilmaameedsadaan ama ku hungureeyaan aad bay u badan tahay. haddaba si aanad naftaada u waayin, naftaada khatar u gelin, waxa aan ku boorinayaa bulshada Soomaaliyeed hadiiba xawaalad la tagayo ama meel kale la tagayo, qof in loo tago, qofka wax soo qaataana uu gudaha inta aanu ka soo bixin wixiisa qarsado oo aanu ku xaragoon. labo, waxaan ku baraarujinayaa inta la awoodayo in gaadiidka dadweynaha la qaato sida basaska la yiraahdo autobuska ama in la qaato doolmushka. labadaasiba waxay leeyihiin kamarado, inta badanna waa safe. haddii aad ka maarmi weydid inaad taxi qaadatid, waxaan kugula talin lahaa inaad applicationka B-taxi taxigaaga ka dalbatid. sababtoo applicationka marka aad dalbatid oo uu ku aqbalo taksiiluhu, waxaa kuu soo baxaya sawirkiisii, magaciisii, taleefankiisii iyo gaadhigiisa lambarkiisa. taksiga aad halka ka qaadatay waa ammaan, waxba kuma yeeli karo sababtoo ah xogtiisa oo dhan baa la hayaa. meeshuu ka qaaday ilaa meeshuu ku geeyayna waa la hayaa. marka arinta insha Allah ku dadaala, hal la digtoonaado. mar labaad iyo mar saddexaad ba qoyskii uu marxuumku ka baxay waxaan leeyahay samir iyo iimaan. marxuumkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala u naxariisto, inaguna inaynu digtoonaano oo aynu ku baraarugsanaano duruufaha iyo xaaladaha la marayo waa muhiim. inta aynu muuqaalka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa salaamu Allaahi calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.